iyaguna waxayba diideen in la furo heshiiskii oo maxay ku diideen waxay la yimaadeen caqabado kaleeto oo dalka la rabo in sharafkiisa lagu dilo oo la rabo in doorashada lagu hor istaago si dadban oo la rabo in colaad lagu horiyo oo la rabo in dana shisheeye lagu fuliyo yacni maxaa ka mid ah qaarkood iyagaaba sheegay muxuu ahaa madaxweyne Saciid Deni oo hadda hadlay isagaa sheegay inay yiraahdaan in dalka ajnabi ah loo dhiibo inagu isma aamini karnee oo dadkii iyo diblomaasiyiintii waddankan jooga ay la yaabeen sida muxuu ahaa nimanka mas'uuliyiinta ay u fakarayaan oo ay ku yiraahdeen war annagu sharciga aan waddankan ku joognaa nooma ogola inaan intaan nimaadno aan niraahdo annagaa heshiis idiin saxiixaynay annagaa heshiis idiin fulinayna heshiiska waa gaarteen waa qoran yahay baarlamaanka la mariyay waa la sharciyeeyay aada walaalahan markaa waxay doonayaan waxay ahayd waxay ku qanci waayeen oo ay aqbali waayeen oo u cuntami waayey malaha danaha iyaga shakhsiyan ku dhex jira ama dadka ajnabiga ah ay leeyihiin in aysan dadka Soomaaliyeed ka suurtagelayn ayaa u soo baxday in aysan suurtagelaynin in dalkan dagaal ka dhaco in aysan suurtagelaynin in rabitaanka dadka Soomaaliyeed la hor istaago in aysan suurtagelaynin in doorashada la rabo in lagu tartamo oo xildhibaanada aan la garanayn iyo madaxweynaha aan la garanayn in ay ka soo bixi doonaan in intay hor istaagaan ay ka soo saaraan madaxweyne ay yaqaanaan iyo xildhibaano ay yaqaanaan taas waxay raadinayeen iyada laftirkeeda waxay ku qorteen wixii ay rabeen 17 September laakiin 17 September markay akhriyeen madaxdeena walaalaheena oo ixtiraamayno waxa haddana uga soo baxday in yoolka iyo hadafka ay raadinayaan ayna ku gaaraynin wasiiradoodii diraan baydhabo ay u direen wasaaribtiin u soo qorahayo waayahay qorta markii la qoray haddana wixii wasiiradoodii keeneen bay diideen waayahay halkaan aan wada joognaahay bal hadda ku dhex qortay waxaad rabtiin oo noo ogolaada in dhalada la saaro waa diideen marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego walaalayaalow waxa dawladda Soomaaliyeed iyo nimanka odayaasha isku hayaan waxay tahay wixii aan ku heshiinay aan ku soconno annagoo dal Soomaaliya la yiraahdo jamhuuriyadda ah oo aan fulino oo aan ku dhex shaqayno iyo maye ku dhex shaqaymayno dalna ma ahaanayno ee dadna xukuumaha naloo raadiyo dadkaasuna waxay rabaan ha sheegteen markaasna waxay iyagu rabaan muraadkooda ha ka dhex fuliyeen dalkana dagaal ha ka dhaco sidaan ha loo taagnaado halkaas waa ay meesha la kala joogo muqdisho markii la isugu yimid waxaad xusuusan tihiin 5 beri oo iyagu waxay yiraahdeen ma imaanayna madaxtooyada waxaan rabnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho in lagu kulmo oo teendhada Afisyooni lagu kulmo ma sidaasaa doonaysaan waaya maalintay yimaadeen 5 maalmood oo isku xigta ayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo saddexda dawlad goboleed Hirshabeelle iyo Galmudug iyo South West iyo gobolka Banaadir ay halkaas subaxii intay tagaan ay 5 galabnimo ka soo tagayeen madaxda qaranka oo aad garanaysaan shaqada u taal ee mas'uuliyadda u taal walaalaheen iyagoo jooga hotel u jira 300 oo tallaabo 400 oo tallaabo waxay diideen inay meeshii yimaadaan 7 beri 5 beri halkaas subax ka Soomaaliya madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu u kala hayeen kama aanay quusan madaxda qaranku si ay noqotaba walaalaheen maalin dhaxdaas ahay maaragtay dhowr beri ka hor ayay ogolaadeen inay ku soo biiraan oo ay yimaadaan shirki markay yimaadaan waxay isku dayeen wax kasta oo caqabada oo ay ku fashilin karaan shirkaas inuu dhaco oo yacni mararka qaarkood dadka Soomaaliyeed aysan mudnayn in loo sheego inay keeneen muxuu ahaa walaalaheen oo muxuu ahaa yacni qarannimada iyo dawladnimada iyo sharafka ku liddi ah wixii la samayn kara waa la sameeyay wixii tanaasul la awoodi kara waa la awooday meesha markay yimaadeen maxay ahayd ujeedada loo yimid waxay ahayd sidaan idin sheegay 16 Febraayo technical agreementigii muxuu ahaa heshiiskii farsamo ee lagu soo xaliyay qodobadii saddexda ahaa ee taagnaa ee ka soo noqday 17 September iyagoo ay keeneen heshiiskii la soo gaaray in la isla fiiriyo in la furo madaxdu markaa inay waxay ku darayaan ku daraan waxay ka bedelaan horena loo socdo maalintii Afisyooni yimaadeen waxay yiraahdeen maya ma ogolin in arrintii laga hadlo maxaad doonaysaan ajandaha shirka lagu heshiiyo war waa maxay ajandaha shirka ka hadlaysaan soo shirka miyaanan isku ogeyn in 16 Febraayo wixii lagu heshiiyay aan meesha ku dhamaystirno oo halka aan ku dhamayno maya qodobo cusub oo aan arrintii ku jirin oo aan 17 September ku jirin oo 16 February aan ku jirin oo dooday qabeen aan ahayn oo qaarkood si cad liddi ugu yihiin madax banaanida dalka ayay keeneen halkaas way horta meeshii markii 3 beri la fadhiyay oo madaxda qaranku fadhisay oo madaxda dawlad goboleedyadu fadhiyeen maxaa dawladda la soo gudboonaaday marka waxa caddaatay madaxda dawladda iyo madaxda dawlad goboleedyada ee shirka joogay in walaalaheen aysan jirin nooc doorasho ay ku qanci karaan inaysan doorasho u socon in ujeedada ay leeyihiin ay tahay in laba xaajo midood ay waddankan ka dhacdo
doorasho ay yaqaanaan natiijadeeda oo ay bannaanka ku hubiyeen oo xerada afisyooni ay ku hubiyeen in dalka ay ka dhacdo oo ay yaqaanaan qofka madaxweyne noqonaya iyo qofka madaxweyne noqonaya taas hal option oo ahaa haddii ay waayaan oo taas ay xaqiiji waayaanna in dalka uu dagaal ka dhaco laysku burburiyo muqdisho laysku laayo dhibaata ay ka dhacdo halkaa markay caddaatay maxaa maanta dowladdu soo saartay fasiraado badan oo qaldan iyo maaragtay tarjumaado badan oo aan sax ahayn laga bixiyo waxaan jeclaan lahaa in la akriyo warmurtiyeedka ka soo baxay dowladda ee ku jira barta rasmiga ah ee telefishinka qaranka iyo warbaahinta qaranka ee dowladda matasho ku jira dowladdu waxay sheegtay in dhibaato ay jirto oo shirkii ay caqabad ku noqdeen oo ay hor istaageen oo doorashadii ay diideen in dalku uu doorasho aado labada madaxweyne walaalaheena Siciid Deni iyo madaxweyne Axmed Madoobe meesha ay joogtahay waa halkaas dadka Soomaaliyeed halka ku jiro sharafta badan muxuu ahaa waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in wax kale oo wanaagsan ay dadka Soomaaliyeed u soo carfaan laakiin waxaan idin sheegaynaa dawladdu intaas oo tanaasul inay samaysay waxa ay sheegtayna inay tahay in ay ku qasbanaatay inay mushkiladda taagan dadka Soomaaliyeed u sheegto waxa walaalaheen ay doonayaan ee saddexda bari la isku hayay aan rabo dadka Soomaaliyeed halkan ku jira inaan u sheego oo aanan rabin qariyo iyadoo isku duuban waxay tahay walaalaheen iyaga waayo cidda aan doorashada u socon halka doorashada ogol yihiinna waa doorasho ay rabaan natiijadeeda inay bannaanka ku ogaadaan weliba taasoo iyaga xataa aan u sawirayn nuuceeda oo aysan aqoonin faragelin muxuu ahaa dibadeed ayaa ku dhex jirta oo ka shaqaynaysa in dalka Soomaaliya ay u meeriyaan sida uu u ekaanayo ama ay dumiyaan marka arrintu halkaas ay joogtaa soo dhawaada aadayaad u mahadsan tahay wasiir intaynaan u gudbin inagoo dadka toos ugu wareejin doona su'aalahana sidaa furan lagu weydiin doono cabdiraxmaan waxa daahiyada dabadooda ka dhacaya in dadkani ogeyn waxaad ka soo sheekaysay intii meerto ay soo martay doorashada diidmooyinkeedii caqabadihii waa maxay waxa rasmiga ay rabaan ama qodobada ay idin hor dhigeen ee aad diideen ama iyagu waxa ay doonayaan bal u biniixi dadka halkaa walaalow aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa waxayn hor dhigeen iyo waxa anagu aan diidnay iyo waxa la isku hayo saddexdaba inaan ku celiyo si faahfaahsan u sheego walaalow waxa iyagu ay diideen waxay tahay wixii heshiiska lagu ahaa ee ku qornaa 17 September iyo heshiiskii farsamo ee 16 February ee dawladda Soomaaliyeed ay sharci baydhabo lagu gaaray ee lagu xaliyay saddexdii qodob ee cabashada ka qabeen ayay diideen walaalaheen in laga hadlo waxay diideen wixii cabasho ay ka qabaan heshiiskaas ku dhex jira in laga wada hadlo oo mushkiladda la xalliyo waxa horta ay diideen waa taas waxayba hor istaageen in laga hadlo yani wixii lagu heshiiyey muxuu ahaa ajendaha shirku sidaan idin sheegay shirkaani hal ajenduu lahaa waxay ahayd waxyaabihii ka dhimanaa caqabadaha ahaa ee soo noqday ee iyagu ay keeneen ee wasiiradooda ay soo dirsadeen ee baydhabo lagu soo xalliyey in inta kombiyuutarka la furo oo dhalada la saaro derbiga la saaro qodob qodob loo aqriyo waxay ku darayaan iyo waxay ka bedelaan ama ku daraan in markaa la saxiixo doorasho la aado taasay ahaydaan anaku doonaynay dawladdu ay doonaysa iyaguna waxayba diideen in la furo heshiiskii oo maxay ku diideen waxay la yimaadeen caqabado kaleeto oo dalka la rabo in sharafkiisa lagu dilo oo la rabo in doorashada lagu hor istaago si dadban oo la rabo in colaad lagu horiyo oo la rabo in dana shisheeye lagu fuliyo yacni maxaa ka mid ah qaarkood iyagaaba sheegay muxuu ahaa madaxweyne Siciid Deni oo hadda hadlay isagaa sheegay inay yiraahdaan in dalka ajnabiga loo dhiibo inagu isma aamini karnee oo dadkii iyo diblomaasiyiintii waddankan jooga ay la yaabeen sida muxuu ahaa nimanka mas'uuliyiinta ay u fakarayaan oo ay ku yiraahdaan war annagu sharciga aan waddankan ku joognaa nooma ogola inaan intaan nimaadno aan niraahdo annagaa heshiis idiin saxiixaynay annagaa heshiis idiin fulinayna heshiiska waa gaarteen waa qoran yahay baarlamaanka la mariyay waa la sharciyey aada walaalaheen markaa waxay doonayaan waxay ahayd waxay ku qanci waayeen oo ay aqbali waayeen oo u cuntami waayey malaha danaha iyaga shakhsiyan ku dhex jira ama dadka ajnabiga ah ay leeyihiin in aysan dadka Soomaaliyeed ka suurtagelayn ayaa u soo baxday in aysan suurtagelaynin in dalkan dagaal ka dhaco in aysan suurtagelaynin in rabitaanka dadka Soomaaliyeed la hor istaago in aysan suurtagelaynin in doorashada la rabo in lagu tartamo oo xildhibaanada aan la garanayn iyo madaxweynaha aan la garanayn in ay ka soo bixi doonaan in intay hor istaagaan ay ka soo saaraan madaxweyne ay yaqaanaan iyo xildhibaano ay yaqaanaan taas waxay raadinayeen iyada laftirkeeda waxay ku qorteen wixii ay rabeen 17 September laakiin 17 September markay akhriyeen madaxdeena walaalaheena oo ixtiraamayno waxa haddana uga soo baxday in yoolka iyo hadafka ay raadinayaan ayna ku gaaraynin
wasiiradoodii diraan bay dhabay u direen warsaa rabtiin u soo qora hayo waayahay qorta markii la qoray haddana wixii wasiiradoodii keeneen bay diideen waayahay halkaanaan wada joognaahe bal hadda ku dhex qorta waxaad rabtiin oo noo ogolaada in dhalada la saaro waa diideen marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego walaalayaalow waxa dawladda Soomaaliyeed iyo nimanka odayaasha isku hayaan waxay tahay wixii aan ku heshiinay aan ku soconno annagoo dal Soomaaliya la yiraahdo jamhuuriyadda ah oo aan fulino oo aan ku dhex shaqeyno iyo maye ku dhex shaqeymayno dalna ma ahaanayno ee dadna xukumaha naloo raadiyo dadkaasuna waxay rabaan ha sheegteen markaasna waxay iyagu rabaan muraadkooda ha ka dhex fuliyeen dalkana dagaal ha ka dhaco sidaan ha loo taagnaado halkaas waa meesha la kala joogo